dowladda Iiraan oo wacad ku martay in ay bannaanka u soo bixin doonto madaxyada hubka nukliyeerka ay haysato xilli dowladaha Yurub iyo Mareykanka ay cunaqabateen dheeri ah ay saareen. Haddaba arrinkan muxuu ka dhigan yahay? Dowladda Turkiga oo jawaab waafi ah ka bixisay warar sheegaya inay dib ugu celinayaan Ruushka gantaalaha difaaca ee S-400 iyo Ruushka oo ogaaday in Mareykanka uu arrinkan ka dambeeyo. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Netanyahu oo Trump ka codsanaya in Masar uu ku cadaadiyo inay joojiso militariga ay ku soo daabulayso gobolka Sinai. Haddaba Israa'iil maxay Masar uga cabsanaysaa? Xogihii u dambeeyey ayaan muuqaalka kugu faahfaahin doonaa. Like sar haddii uu ku soo gaaro saaxiib muuqaalkeenna, si meel dheer u gaaro muuqaalkan adigoo like saaran ha ka tegin. Janalkan haddii aad ku cusub tahay, subscribe saaro, aad ayaad u mahadsan tahay. Haddii aanu ku bilowno, dowladda Iiraan waxa ay wacad ku martay in marnaba aysan u leeci doonin xayiraadda cunaqabateen oo ay saareen markaasi dowladaha Yurub xilli lagu sugan yahay golaha ammaanka oo codayntii ugu badneed lagu waafajiyey in cunaqabateen dheeri ah la saaro dowladda Iiraan. Cunaqabateyntan waxaa saaray wadamada E3 la dhaho ee kala ah Faransiiska, Jarmalka iyo Ingiriiska, kuwaasoo qaraarka cunaqabateynta geeyay golaha UN-ka ugu dambeynna helay codadkii ku filnaa, taasoo ka dhigan in cunaqabateyn dheeri ah la saaray dowladda Iiraanna dhowr qodob oo ay dowladahan dalbanayeen ayay gebi ahaanba ka hor timaaday, waxaana ka mid ah inay u oggolaato hay-adda atomikada adduunka shaqaalaheeda in ay galaan xarumihii Mareykanka iyo Israa'iil ay duqeeyeen ee nukliyeerka intii uu socday dagaalkii 12 beri Israa'iil iyo markaasi Iiraan. Waxaa kaloo ku jirta in ay dib u cusboonaysiiso heshiiskii nukliyeer ee 2015 iyo sidoo kale in Iiraan ay si dhaqso leh ay jilbaha u dhigto madaxana fororiso ayada oo markaa isku dhiibaysa dowladaha reer galbeedka. Guud ahaan waxaasoo idil ka hor yimaaday markaasi dowladda Iiraan gebi ahaanna way diiday in ay hay-adda atomikada adduunka shaqaalaheeda ay galaan xarumihii la duqeeyey. Waxaa kaloo aad loogu haystaa macdanta uraniumka oo la bacrimiyey oo ilaa 400 oo kilogaram gaaraysa halkii marka ay geysay. Intaa marka laga tago dowladda Iiraan, markii cunaqabateynta cod ahaan loogu qaaday golaha UN-ka oo la saaray, waxaa hadlay madaxweynaha dalka Iiraan, ninka lagu magacaabo Mascuud Pezeshkian, kaas oo si cad u sheegay in kastoo xayiraad la saaray, Iiraan marnaba isma dhiibi doonto ayuu sheegay, wuxuuna wacad ku maray in aysan ka tanaasuli doonin Iiraan marka hubka nukliyeerka. Arrinta kale waxa ay tahay xildhibaanada baarlamanka dowladda Iiraan oo u fadhiya sidii ay gebi ahaanba u burburin lahaayeen heshiiskii is-afgarad ee magaalada Qaahira ku dhex maray dhowaan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Iiraan Sayid Cabbaas Araaji iyo sidoo kale ninka hay-adda atomikada adduunka madaxda ka ah Rafael Grossi. Haddaba heshiiska is-afgaradka ah ayaa hadda la burburin doonaa. Waxaa gebi ahaanba ay ka laaban doontaa Iiraan heshiiskii hay-adda markaasi ay kula jirtay, weliba heshiiskii NPT ee ahaa wadamada aan iyagu haysanin madaxyada nukliyeerka. Waxa kaloo ay baarlamanku hadda u fadhin doonaan sidii Iiraan ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabi lahayd farsamada madaxyo nukliyeer ah oo ay isku difaacdo. Haddaba cunaqabateynta iyo arrinta ay qaadi doonto Iiraan oo ah inay hub nukliyeer soo saarato intii ay hore u haysatana bannaanka ay soo dhigto, waxa ay keeni doontaa weerar ay ku qaadaan weerar labaad in lagu qaado. Weerarka labaad kaliya Israa'iil kuma qaadi doonto daawade, sida la filayo waxa ku qaadi doona Israa'iil, Mareykan iyo saddexda wadan ee hadda cunaqabateynta saaray ee la isku dhaho E3, Faransiiska, Jarmalka iyo Ingiriiska. Xaaladda gobolka bariga dhexe ayuu hadda Ruushku uu si weyn uga digayaa. Golaha UN-ka waxaa ka hadlay ambaasadoorka Ruushka oo goobta fadhiyey oo cunaqabateynta lagu saaray dowladda Iiraan. Waxa uu sheegay cunaqabateynta Iiraan la saaray in ay noqon doonto mid aan u wanaagsanayn gobolkan bariga dhexe oo keeni doona dagaal iyo sidoo kale qalalaaso daba dheeraada. Wuxuu kaloo uu Ruushka digniin ku bixiyey
in ay hadda bahashu ay taagan tahay in diblomaasiyad lagu xalliyo sida waddamada reer galbeedku ay wax u wadaan iyo Mareykan iyo Israa'iilna aysan hadhow noqon doonin mid markaasi wanaag laga hele noqon doonto mid dhibaato u horseeda. ruushka laakiin waxa uu hoosta ka xariiqay in si dhammaystiran uu u garab istaagsan yahay dowladda Iiraan isla markiiba Kuuriyada Waqooyi iyo waddamo kale ayaa u soo diray dhambaallo Iiraan kuwaasoo ay ku sheegayaan in si toos ah ay u garab istaagsan yihiin. qodobkan haddii aanu intaasi ku dhaafno daawadayaal, qodobka xiga ee barnaamijkeenna, Turkiga ayaa si waafiya markii ugu horreysay uga hadlay arrinta ah warar laysla dhex maraya oo warbaahintu ay sheegayeen kaas oo ah in Turkida ay iska celin doonaan gantaalaha difaaca ee ruushka uu farsameeyo ee lagu magacaabo S-400. sida aad wada ogtihiinna xalayto Trump waxa uu ku dhawaaqay in bishan Sebtembar 25-keeda ay Erdogan ku casuumeen aqalka cad ee dalka Mareykanka. casuumaad marka laga tago waxaa barbar socoto ayuu Trump sheegay heshiis ganacsi, heshiis difaac iyo in Turkida loo ogolaado inay helaan diyaaradaha F-35. Trump waxa ay wararku sheegeen inuu ku cadaadinayo Turkida in ay gebi ahaanba iska celiyaan gantaalaha difaac ee S-400 ee ruushka uu farsameeyo, iyada oo sababta loogu diiday diyaaradaha F-35 ee dagaal ay macnaheedu tahay in Turkidu ay isticmaalaan qalab military oo ruushka uu leeyahay. muddo dheer ayaana loo diidayay, taasoo hadda Mareykanka uu muddo uu ka fiirsanayay maamulka Trump ay go'aan ku gaareen maadaama saaxiibkooda dhabta uu yahay ninka la dhaho Erdogan in loo ogolaado diyaaradaha F-35 in ay markaasi meesha markaa ay Turkidu yeeshaan. Turkida haddii heshiiskan qalinka loogu duugo waxa ay qayb ka noqon doonaan dowladaha soo saara diyaaradaha F-35ka, iyada oo dowlado tiro badan oo sida Talyaaniga iyo kuwa Yurub intooda badan markaasi ay soo saarayeen diyaaradaha F-35. laakiin hadda waxa ku soo biiri doona Turkiga kaasoo ka mid noqon doona dowladaha soo saara diyaaradahan dagaal ee F-35. Israa'iil ayaa olole xoog leh ka wada dhinaca kale aqalka cad ee dalka Mareykanka, waxaana ololaha uu yahay in marnaba aan Turkida la siinin diyaaradahan F-35 haddii ay diyaaradahan helaan oo ay sidaasi farsamadooda iyo kaxeentooda iyo ku dagaalgelidooda ay Turkidu ku guulaystaan. waxay ka dhignaan doontaa in awoodda gobolka bariga dhexe Israa'iil iyo Turkidu ay ka wada sinaan doonaan. si kastaba ha noqotee ruushka ayaa isaguna hadlay, waxaana uu xaqiijiyey in aysan warkan waxba ka jirin oo ay Turkidu markaasi ka dalbanin inay dib u soo celiyaan. sidoo kale Turkidu waxay xaqiijiyeen in aysan marnaba dalab noocan oo lagu celinayo gantaalaha S-400 aysan markaasi ruushka u gudbinin. waxayna xaqiijiyeen in hadda gantaalahan uu ka mid yahay hubka dalka Turkiga oo lana isticmaalayo. si kastaba ha noqotee waxay Turkidu sheegeen ama hana la siiyo F-35 ama loo diiday, wuxuu ka mid yahay hubka hadda aan ku dagaalgalayno, marnabana dib uguma celin doono dalka ruushka oo ah dalkii markaasi ay ka soo iibsadeen. qodobka u dambeeya ee barnaamijkeena daawade, Netanyahu ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa waxa uu fariin baroor ah u diray Donald Trump. waxa uu ka baryayaa in ay Masar cadaadis saaraan, cadaadiskaas oo ah in Masar loo hanjabo, Masar in tallaabo laga qaado, tallaabadaas oo ah in markaa mid ka joojinaysa askarta militariga ah iyo taangiyada iyo diyaaradaha dagaalka oo ay ku soo gurbinayso gobolka Sinai. waxaa jira dowlatus CENTCOM la dhaho kaasoo ay wada samayn doonaan Mareykanka iyo Turkida cafwan Masaarida. waxaana Netanyahu uu codsanayaa in xitaa howlgalkaasi laga joojiyo, sidoo kalena tallaabooyin kale ay laga qaado dowladda Masar si gebi ahaanba ay uga noqoto askarta ay ku soo daabulayso gobolka Sinai. halkan waxaa inooga cad in Israa'iil ay walwal xoog leh ay ka qabto dagaal Israa'iil iyo Masar dhex mara, maxaa yeelay xaaladda Gaza oo aad u sii xumaanayso iyo weerarkii ay Israa'iil ku qaaday magaalada Dooxa. guud ahaan qobarada xagga military iyo amni ee dalka Masar ayaana u arka in Israa'iil dagaalka Gaza ay sii ballaarin karayso maalinba maalinta ka dambeysa. saas la ajligeed waxa ay go'aan ku gaareen in heshiiskii Mareykanka iyo wadamo kale ay markaasi ku jireen ee lagu heshiisiyey
masar iyo israa'iil in ay ka baxaan oo ay hadda masar si dhammaystiran ugu diyaargarowday dagaal kasta oo ay israa'iil dhankeeda kaga yimaada gobolka Sinai ayaana maalin kasta waxa ay masar geysaa ciidamo hor leh hadda kor waxay u dhaafayaan ilaa iyo 40,000 Netanyahu waxa uu sheegay dhismayaasha ka socda gobolka Sinai meelihii lagu heshiiyey in kaliya askar uun lagu arko laakiin hadda isku beddelaya goobo military xarumo wax lagu keedad la keeno hubka keedadkiisa kala duwan la keeno oo askar tiro badan seexan karaan iyo dhismayaasha meesha ka soconaya oo xarumo military ah waxay macno u tahay in masar mustaqbalka dhow ay fiirinayso in dagaal ay la gasho dhanka Israa'iil xaaladda Gaza aad ay uga sii daraysaa waxayna doonaysaa inay Gaza oo idil ay isku furto ilaa iyo masar aysan wax u dhaxeeya haba yaraatee aysan jirin waxa Israa'iil hadda ay wado ayaana ah in gabi ahaanba wax dowlad Falastiin la dhaho meesha laga saaro xataa haddii la awoodi karo in dadka Falastiiniyiinta ah gabi ahaantoodaba la soo barakiciyo muuqaalka haddii aad dhamaadka soo gaartay adigoo like saaran ha ka tagin channelkeena haddii aad ku cusub tahay subscribe dhaho mahadsanid daawade